Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibada qiimiga ee qayaha loogu soo dhawaada channelkayga Abwaan Ciyaaye. Hadday tahay markii kugu horeysay, fadlan subscribe saar channelka, videogana like saar si uu u gaaro asxaab badan. Maanta waxaanu idin akhrin doonaa qiso yar. Malakulmud ayaa u soo galay Nabi Daawud calayhi salaam. Kor ayuuna u kacay, wuxuuna ku yidhi: soo dhawow walaalkaygiyo iyo xabiibkii malakulmudahayo, waxaad iigu timid inaad naftayga qaado ama waad isoo booqatay. Wuxuu yidhi: maya, waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo arrinta wiilka xertaada ka midka ah. Noloshiisa waxaa ka hartay 10 maalmood. Wiilkuna xilligaas waa 20 jir, lana fadhiista nabiga Alle oo ah Nabiyullaahi Daawud. Markaasuu murugooday Nabiyullaahi Daawud, wuxuuna bilaabay inuu sheeda kala socdo. Waxaana dhammaatay 10kii maalmood, mana uusan dhiman wiilkii. Maalmo kadib waxaa u soo galay malakulmud Nabi Daawud calayhi salaam. Wuxuu yidhi: soo dhawow walaalkay aan jeclaayow. Malakulmud, waxaad iigu timid inaad naftayga qaado mise waad isoo booqatay? Malakulmud ayaa yidhi: maya, waxaan kuugu imid inaan warbixin kaa siiyo arrinta wiilka dhalinyarada ah ee xertaada ka midka ah. Nabi Daawud ayaa yidhi: waxaad igu tiri 10 maalmood ayaa u hartay, maantana 16 maalmood ayaa la marayaa. Malakulmud ayaa yidhi: rabbigayga ayaa amray inaan nafta ka soo qaado. Kadib markii uu cuno isla markaana uu cabo qiyaas biyo ah oo u qalmo bari iyo galbeed, ayaana tegey waan ka soo waayay wax u qalma. Iyadoo ay hortay neefsasho kooban, isaguna uu socdo anna dhinaciisa aan socdo, ayaa waxaa waddada soo maray nin sabool ah. Wuxuuna ku yidhi: ilaahay ayaan kugu dhaarshay, waxisi. Saboolka ayaa dhahaya. jeebkiisa ayuuna gacanta geliyey, wuxuu ka soo bixiyey 6 diinaar, wuxuuna siiyey ninkii faqiirka ahaa. Faqiirka ayaa yidhi: ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo, hana kaa dhigo mid jannada rafiiq kula noqda Nabiyullaahi Daawud calayhi salaam. Durba waxaa ii yeeray Rabbul Ciza, iguna yidhi: kaalay malakulmudow, ha ka qaadin naftee. Malakulmud ayaa yidhi: rabbiyow, raashin iyo biyo intee leeg ayaa u harsan si naftaan uga soo qaado? Neefsasho tirsanta waa u hartay. Alle ayaa yidhi: miyaadan arkayn waxa uu siiyey ninka faqiirka ah? Malakulmud ayaa yidhi: haa. Alle ayaa yidhi: miyaadan maqlaynin ducada faqiirka? Malakulmud ayaa mar kale ku celiyey: haa. Markaasuu Alle ku yidhi: u tag Nabi Daawud, kuna dheh nabadgelyo ugu akhri duruusta, una sheeg in Alle cimrigiisa 60 sano ugu daray, uguna beddelay 6 diinaar, mana dhimanayo isagoo aan gaarin 80 sano, wuxuuna rafiiq kula noqon doonaa jannada. Fadlan haddaad ka heshay qisadan, si aan u sii badinno, videogana like garay, channelkana subscribe noo saar. Mahadsanid. Waxaa qoray Maxamed Axmed Jimcaale.